سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودايال كسو دوادا برنامج كني عيارها او انكو قادا ديجي دونو قدباءات وحيسا بدن وحانا كقيب نغن دونا وقت حاضر ككان مياي اوباحان تهي ريال مدريد ايرلان هالاندي متكامدا عيارتو اذا ايفرتون oo dhulka la galay Virgil van Dijk kuna tilmaamay in uusan ahayn difaaca ugu fiican waqti xaadirka kan caalamka oo dhan. Pep Guardiola oo xaqiijiyay mid kamid ah xidigaha Manchester City in uu iska diidayba in kooxda uu u saxiixo heshiis cusub talow intuu ku wajahayahay ciyaaryaankaas sidoo kale barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaa maxkamadii qabatay dacwadii u dhaxaysay Barcelona iyo Neymar oo ugu dambeyntii go'aan cad soo saartay sidoo kale barnaamijkeena waxaad ku daawan doontaa kooxaha ugu awooda badan Premier League sida Liverpool, Manchester United iyo Manchester City oo ku wada dagaalami doona iyagana saxiixa David Alaba il capitano Ispalaqueta oo amaan kala dulacay laacibka dhawaan ay ku guuleysatay Chelsea saxiixiisa ee Timo Werner Mas'uud Ozil oo isagana go'aankiisii ugu dambeeyay farta ka saaray maamulka Arsenal miyuu diyaar u yahay in uu ka tago kooxda qodobada iyo kuwa kale oo aad u xiiso badan ayaadna ku daawan doontaa barnaamijkeena ugu horeyn laagsar muuqaalkan subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee muuqaaladeena mahadsanid halkani waa Tulito Channel aan ku bilaabano barnaamijkeena ugu dambeyntii kubadsameeyaha reer Germany ee Mas'uud Ozil wuxuu maamulka Arsenal uu ku wargeliyay go'aankiisii ugu dambeeyay oona noqonaya marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan in uu isaga tago waqooyiga London arintani waxay imaanaysaa xilli Arsenal dhankeeda xitaa ay doonaysaba inay iska fasaxdo laacibkan oo waxay u arkaan in dhinac kasteetaba culays weyn uu ku yahay mushaarka toddobaad ahaan uu u qaadanayo oo gaarsiisan ilaa iyo 350,000 oo gani Ozil kaliya 10 kulan ayuu ku soo bilowday xilli ciyaareedkan tan iyo markii macallin Mikel Arteta loo dhiibay laakiin kulankii arbacadii City ay ciidda ku rafaadisay Arsenal waxa laga fogeeyay shaxda kooxdiisa oo bal laguma soo darin liiska xidigaha uu soo xushay macallimka reer Spain tababaraha ma uusan sheegin sababta rasmiga ah ee ka dambaysa in uu ka soo tago Mas'uud Ozil laakiin waxa loo saadaalinayaa in sababi ay u tahay ganaax la duldhigay laacibkan ka gadal markii uu diiday in mushaarkiisa uu hoos u dhigo sababa la xiriira xaalad maaliyadeed oo aad u culus in ay wajahayso kooxda ku ciyaarta Emirates Stadium sababna uu u noqday aabuqa coronavirus heshiiska Arsenal ee Mas'uud Ozil uu kula jiro wuxuu dhacayaa 2021 balse inta qaab xur ah kooxda aysan ku weynin waxay diyaar u tahay iyada qudheeda in haatanba ay ka faa'iideysato jiriirada ESPN ayaana haatan waxay tilmaamaysaa in Arsenal ay direen fariima ku qotoma in ay dhageysan doonaan dalabyada ugu imaanaya Mas'uud Ozil waxaana durbaba aad u doonaysa kooxda Paris Saint-Germain oo laacibkani doonaysa in ay ka ridaba xagga iyo horyaalka Ligue 1 Faransa kooxda Real Madrid waxa aad loogu saadaalinayaa muddooyinkii ugu dambeeyay in ay heli doontaba dhowr ciyaartoy uu qibi uu ka yahay Erling Haaland kaasi oo horumar wacan oo wanaagsan ku sameynaya waqti xadirka kan kooxdiisa Borussia Dortmund haddaba weeraryahankii hore ee Real Madrid iyo xulka qaranka Brazil ee Luis Nazário da Lima Ronaldo ayaa carabka ku adkeeyayba in kooxda Los Blancos aysan u baahnayn inay hesho Erling Haaland marka la fiiriyo kartida gool dhalineed ee isbuuc kasta uu sameeyo Karim Mustafa Benzema isagoo ka hadlayay arrimahaasina waxa uu ka yiri Real Madrid waxay haysataa ciyaartoy aad u wanaagsan Benzema goolal ayuu dhalinayaa wareeg kasta laakiin waxaan u malaynayaa in Haaland uu yahay ciyaariyaan weyn weli waa da'yar
wuxuu soo bandhigayaa sanad wanaagsan uu goolal badan uu dhalinayo. xaqiiqdii ciyaaryaankan kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub oo dhan dhaayaha ayay la raacayaan. laakiin aan aragno arrintan waxa ay ku dhammaato ayuuna hadal ku soo gabagabeeyay laacibkii hore ee xulka qaranka Brazil Luis Nazário da Lima Ronaldo. kooxda Bayern Munich iyadana waqti xadirka kan iyo wixii ka dambeeyaba waxay diyaar u tahay inay isdhaafiso David Alaba marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda sida laga soo xigtay jariidada Telegraph. kooxda haysata horyaalka Jarmalka waxay diyaar u tahay in lacaga kaasha ay ku waayaan difaacooda reer Austria ka hor inta uusan si xur ah kooxda ugu dhaqaaqin sanada dambe. Liverpool, Manchester United, City iyo Paris Saint-Germain oo lagu daray Barcelona dhammaan waa kooxaha sida weyn loola xiriirinayo Alaba in ay la wareegi karaan, kaasi oo ay u badan tahayba in lagu iibin doono adduun lacageed gaaraya 50 milyan oo euro. xidiga weerarka ugu ciyaara kooxda Everton ee Richarlison wuxuu su'aal geliyay awoodda ciyaareed ee difaaca reer Holland Virgil van Dijk, isagoona caddeeyay in uusan u arkin in uu yahay waqti xadirka kan difaaca ugu wanaagsan caalamkan. laacibka reer Brazil ee Richarlison ayaa sheegay ka hor kulanka derby Merseyside ee Axadda in ugu yaraan 3 difaac ay ka horeeyaan Virgil van Dijk, inkastoo uu qiray in uu yahay difaac fiican. isagoo ka hadlayna sida uu ugu jeejeesayay laacibka reer Holland iyo kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk, waxa uu ka yiri dadka wax badan ayay ka hadlaan Virgil van Dijk waa ciyaariyaan weyn, laakiin waxaan horay ugu guulaystay in aan Benoni la dhaafo. oo wuxuu banaanka soo dhigay in uu u jilcan yahayba Virgil van Dijk. Richarlison oo weerarka u hogaamiya Everton ciyaar xiiso badanna dhowaan ay dhex mari doonto iyaga iyo Liverpool, waxaana intaasi uu ku sii daray waxaa loo doortay inuu ka mid noqdo 3 ciyaariyaan ee ugu fiican adduunka xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa, laakiin aniga waxaa jira difaacya isaga ka fiican. laacibka reer Brazil iyo kooxda Everton ee Richarlison ayaa ka hadlay 3 difaac uu arko in ay yihiin kuwa ka wacan kana wanaagsan Virgil van Dijk, waxaana uu ka yiri waxaa jira Thiago Silva, Marquinhos iyo Sergio Ramos. Richarlison wuxuu ku guulaystay dhalinta 12 gool halka caawiya uu ka noqday 4 kale kulamadii uu ka soo muuqday Everton xilli ciyaareedkan. su'aalo adag ayuuna dhowaan weydiin doonaa Virgil van Dijk oo ah hogaamiyaha difaac ee kooxda Liverpool ciyaarta ay wada ciyaari doonaan kooxaha ka dhisan gobolka Merseyside. waxaa muddo soo jiitamaysay dacwo uu Neymar ka gudbiyay kooxda Barcelona oo ahayd in aysan siinin gunooyin uu ku lahaa ka hor inta uusan ka tagin. maxkamadda ayaana libinta siisay kooxda Barcelona, waxaana guud ahaanba meesha laga saaray gunooyinkii uu u dagaalamayay laacibka kooxda Paris Saint-Germain. weeraryahanka reer Brazil ayaa Barcelona ka dalbaday gunada daacadnimada kooxda uu ku tilmaamay inay gaarayso 43.6 milyan oo euro ka hor inta uusan u ruqaansan caasimadda Faransiiska. taasi beddelkeeda maxkamadda waxay ku xukuntay Neymar in Barcelona uu siiyo 6.7 milyan oo euro. Barcelona dhankeeda waxay xaqiijisay go'aankii ka soo baxay dacwadda xidigoodii hore uu ku dalbaday gunooyinkiisii daacadnimada ka hor inta uusan aadin kooxda PSG. kooxda Manchester City iyadana ugu dambeyntii waxay quus ka istaagtay in qandaraas cusub ay u gacan geliso weeraryahankooda Loris Sane, waxaana ugu dambeyntii macallin Pep Guardiola uu qirtay in laacibkan uu baxsad ka yahay Etihad Stadium. tababaraha Manchester City waxa uu qirtay in Sane uu diiday 2 ilaa 3 jeer isku day ay kooxda ku doonaysay in qandaraaska ay ugu kordhiso, waxaana uu ka yiri Loris Sane ma doonayo inuu heshiis cusub nala galo, wuxuu rabaa koox kale in uu ciyaaro ayuu yiri Pep Guardiola. Bayern Munich ayaana sida ugu badan lagu soo waramayaa in ay tahay kooxda xigta ee Loris Sane, waxaana xidigan isaga iyo wakiilkiisaba horay ay heshiis hordhac ah ula galeen kooxda Bavarianka.
haatanna Manchester City waxay diyaar u tahay in dhigooda Bayern Munich ay la fadhiistaan miiska wada xaajoodyada. ugu dambeyntii kabtanka kooxda Chelsea ee Cesar Azpilicueta ayaa amaanay go'aankii Chelsea ay kula soo saxiixatay laacibka RB Leipzig ee Timo Werner. khamiistii ayay Chelsea si rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa Timo Werner kaasi oo Blues ku soo biiri doona marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Werner qabcireed cajiib ah ayuu soo bandhigay xilli ciyaareedkan waxaana uu awood u yeeshay inuu dhaliyo 32 gool 43 kulan uu ciyaaray. laacibka reer Germany ayaa xiise wali ah ka helayay kooxda Liverpool iyo Manchester United, laakiin ugu dambeyntii waxaa ku garaacday kooxda ka dhisan galbeedka London. waa xidig cajiib ah oo weerar ah, waxaana uu leeyahay khibrad weyn, waxaana uu dhalin karaa goolal badan. sidaasi waxaa ku qeexay Cesar Azpilicueta oo u sheegay Sky Sports, waxaana intaasi uu ku sii daray sidoo kale waxa uu leeyahay khibrad fiican oo Champions League ah iyo waliba mid heer caalami ah. waa xidig wax weyn ku soo kordhi kara kooxdeena, waxaana uu kor u qaadi doonaa heerkeena, ayuu hadal ku soo gabagabeeyay Cesar Azpilicueta oo amaan kala dulacay Timo Werner oo noqdayba heshiis kale oo ay ku guuleysatay Chelsea kadib Hakam Said. sidoo kale isla wararka Chelsea intaasi waxay ku darayaan in ay diyaar u tahayba in ay isdhaafiso N'Golo Kante si ay u aruuriso lacaga badan oo ay ku doonayso mashaariic kale. kooxda ka dhisan galbeedka London waxay ku guuleysatay heshiiska Hakam Said iyo Timo Werner, laakiin macallin Frank Lampard ayaa weli rajo kale xagga suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, wuxuuna u baahan yahay laba bartilmaameed oo dheeri ah. saadaashana waxay ku dhacaysaa in ay kala noqonayaan goolhaye Oblak oo goolka u ardiyaya Atletico Madrid iyo waliba sidoo kale Kai Havertz. labadaasi ciyaartoy ayaana macquul ah in Chelsea kooxdeeda ay ku soo kordhiso xagayga soo aadan. N'Golo Kante shaki kuma jiro in kooxda laga iibin doono si kooxda uu ugu caawiyo inay hesho maalgelin oo ay ku samayn karto heshiisyo kale, waxaana uu u furan yahay waqti xadirka kan in uu u wareego xagga iyo caasimadda Spain ee Madrid, halkaasi oo ay aad ugu doonayso Real Madrid. intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman. inta aan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij lamida sida iyo nabadgelyo.